xaaladda nolosha dadka naafada oo sii adkaanaysa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay guddiga sare ee gurmadka daadadkii habeen hore ku rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ee Puntland. Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ayaa shaacisay natiijada ka soo baxday baaritaankii ugu horreeyay ee coronavirus ee dhawaan lagu sameeyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon. dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ay wehelinayaan xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo kamid ah xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee dhawaan heshiis la gaaray dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. xaaladda nolosha dadka naafada oo sii adkaanaysa kadib 3 bilood oo dalka Soomaaliya uu galay qalqal iyo xanibaadyo isu socodka ka dhashay cudurka halista ee COVID-19. bisha Maajo sanadkan dowladda Soomaaliya ayaa xirtay gaadiidka badda iyo cirka. isla bishan dowladda ayaa shaacisay yareynta dhaqdhaqaaqa bulshada, goobaha waxbarashada iyo ganacsiga. bishan Abriil dowladda ayaa soo rogtay xaalad degdeg oo lagu joojinayo dhaqdhaqaaqa isu socodka magaalada Muqdisho dhexdeeda iyo xiritaanka goobaha ganacsiga iyo cibaadada. haddaba waxaa adkaatay xaaladda nolosha ee magaalada Muqdisho iyadoo ay dadka naafada ay aad ugu nugul yihiin ciriiriga nolosha. qaar ka mid ah dadka naafada ayaa muujiyay hoos u dhac aad u weyn oo ku yimid dakhliga soo gali jiray iyo nolol maalmeedkooda, iyadoo ay taasi ay sii dheer tahay miciishada oo kor u kacday xilliga bisha Ramadaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay guddiga sare ee gurmadka daadadkii habeen hore ku rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ee Puntland. kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay saameynta ballaaran ee ay ku yeesheen roobabkii daadadka watay ee ka daayay degmada Qardho, kaasi oo sababay dhimasho, burbur hantiyadeed iyo barakac ballaaran. madaxweynaha Puntland ayaa kala hadlay guddiga sare ee gurmadka fatahaadaha Qardho ee gobolka Karkar sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa khasaaraha ka dhashay si degdeg ah wax loogu qabto. Qardho ayaa daadadkii ku rogmaday ee ka dhashay roobabkii mihigaanka ahaa ee ka daayay halkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 6 ruux, waxaana maanta la soo badbaadiyay dhammaan dadkii shacabka ahaa ee habeen hore ay qaadeen daadadka. Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ayaa shaacisay natiijada ka soo baxday baaritaankii ugu horreeyay ee coronavirus ee dhawaan lagu sameeyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo u xiran maamulkaasi. agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii koowaad ee lagu sameeyay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon laga waayay calaamado muujinaya cudurka halista ee COVID-19. sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu sheegay in wariye Cabdimaalig uu qabo cudurro kale, hase yeeshee uusan shaacinin. waxaa la sheegay in wariyaha uu ku dhex xanuunsanayo xabsiga uu ku xiran yahay. isagoo sii hadlaya ayuu tilmaamay in Cabdimaalig Muuse Coldoon oo jirkiisa laga qaaday dheecaano kale isla markaana laga warsugi doono natiijada ka soo baxda baaritaankaasi oo ku aadan cudurka COVID-19. ugu dambeyntii wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa u xiray maamulka Somaliland, waxaana dhowr jeer laga codsaday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inuu cafis u fudiyo, hase yeeshee arrintaasi lama fulinin. dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ay wehelinayaan xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo kamid ah xubnaha isbedel doonka Jubbaland ee dhawaan heshiis la gaaray dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada. waxaa madaxweynaha iyo xubnaha kale ee safarka ku wehelinayay ay mareen baaritaan caafimaad, iyadoo madaxweynaha uu xariga ka jaray qayb cusub oo lagu kordhiyay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in si wanaagsan uu ku soo dhamaaday heshiiska ay dhawaan gaareen xubnaha golaha isbedel doonka iyo xukuumadda Jubbaland. waxaa madaxweynaha uu hoosta ka xariiqay in danta shacabka ay ku jirto heshiiskaasi oo aan shakhsi loogu daneynin balse shacabka loo turay. waxaa madaxweynaha uu intaasi ku daray in shacabka Jubbaland ay wadajir iyo midnimo ku gaari karaan horumar guud, taasi oo qayb ka tahay in wixii lagu kala aragti duwanaado wada hadal lagu xalliyo. waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha in heshiiskaasi uu u dhaxeeyo dowladda Jubbaland iyo xubnihiisa luugay doorashadii sanadkii hore, isla markaana diyaar u yihiin in wixii dhiman la dhameystiro, isla markaana laga shaqeeyo sidii shacabka Jubbaland ay dantooda u noqon lahayd mid laga wada shaqeeyo.